waxaa arrinkani uu ku saabsan yahay dhacdo ka dhacday Damalle-Xagare oo kaga timi maamulka Muuse Biixi waxa aan u soo gudbinaynaa uu yahay si loo ogaado dhacdadaasi waxa ay ahayd nooca ay ahayd waxay ku saabsanayd waxay geysatay cidda la xisaabtami doonta sida loola xisaabtami doono 89kii bishii saddexaad saddexdii galabnimo ayaa jabhadda Muuse halkaa ka soo gashay magaalada dawladda Soomaaliya way jirtay dawladina Damalle-Xagare maalinta ma joogin maalintan oo ay ahayd 22kii bishii shanaad 2019 iyagoo jabhadood maamulna sheeganaya bay halkaa ka soo galeen sidii ay maalinta magaalada ay dabka u saareen bay maantana dabkii u saareen in lagu khatimayay maalinta wixii uu ahaa iyo maanta Muuse waxa uu yahay inuu maalinta mala xoog ma lahayn uu yiri maantaad xoog leedahay maantaad ka aarsan kartaa maanta ka aarso dadka shacabka tan labaadan sheegaynaa waxa weeye markaan ogaanay inay soo socdaan ciidamadaas inay magaalada duulaan ku soo yihiin waxaan la hadalay nimankii saraakiisha ahaa ee hawsha watay Faysal baan la hadalay Faysal waa ninka qaybta gobolka ah ee ciidamada wuxuu yiri amarku iga sareeyaayo waxa amarkaas soo fuliyay ninka la yiraahdo ee nuuxtaani hadii la weydiiyay nuuxtaani wuxuu yiri waa amar iga sareeyo Muuse Biixi buu ka soo baxay waxaad moodaa arrinkii inuu marka Muuse Biixi ku arooray ina cali dhigana isaga waxa leeyahay adiga meesha kula gaadho ma insha Allah baan ka warsugaynaa ninka meeshiisa loogu yimaadana ee sharcigu wuxuu ka qabo waa nin waliba waa og yahay ninka horarkaana ee sharcigu waa og yahay dhacdadii maalinkii dhoweyd ka dhacday degmada Damalle-Xagare ee kaga timi maamulka Muuse Biixi uu hogaamiyo dhacdadaas oo ahayd weerar qaawan oo aan waxba loogu soo gaban oo sabab lahayn oo lagu soo qaaday maatooyinka iyo dadka degan bulshada degan Damalle-Xagare lagu soo qaaday taasoo loo adeegsaday hub waaweyn hubkaas oo ah kiilidka diyaaradaha 35 gaari oo tiknika ayaa hareeraha laga geliyay khasaare naf iyo maalba leh ayay geysatay arrintaasu meesha tanaan ka hadlaynaana waa ummad isu timay ilaa dhowr gobol dadkeedii weeye ku soo magacaaban Damalle-Xagare shacabna ah oo reer guuraa ay isu yimi wuxuu qaadan waaya oo 80kii iyo dhacay 90kii hawlihii dhacay hawlo ah ayaa la soo dirsay magaca aan maqlayo Muuse Biixi maamulka abayna kaga timi soddon iyo wax dheer oo tiknika oo lagu garaacayo oo aan sabab lahayn baa ka dhacday meeshana haddii dawladnimadii hore oo Soomaaliyeed burburtay wax ka dhacay guriga sanaag la yiraahdo afar beelood baa ka jiray madax hore oo meelaha kulay galbeedka ka jirtayna way jirtay iyo maamulka halka ka dhacay ee afar beeloodkii ka baxsan isku dirka ah waxaan ka jiraynaa awoodayada aanu anagu leenahay jiiska waxaan aynoo dawladnimo aan anagu haynayna ma jiraan maxaan ku iraahdaa hubka leedin tusayay oo nooc walba leh oo ka gacanta laga ridaana ka hadda leeyla barbar taagan yahay ugu weyn yahay iyo qoryo beekaamiya ka kalena hub artillery oo loogu talagalay diyaaradaha aan shacab loogu talagelin in lagu garaaco dad shacab ah oo sooman oo aan dagaal u qaadnayn oo dib ku talagelin gurigood intii loogu yimaado in lagu garaaco arrintaasna waxay noqotay arrin fooqal sharci wax la qaadan karana aan ahayn midda labaad wuxuu maamulkaasi sameeyay dad darisa oo beela ah oo nabadgelyo ka kadhaxayso inuu qaybtood qayb aan wax magarata ah hub haysato intuu soo dareeriyo qaybta kale u keeno isagoo doonaya nabadgelyada beeluhuna inay faraha ka baxdo taasoo uu kaga faa'iideysto qodobkii uu sheegay oo bandooda ahaa dal aanu lahayn iyo dad aan ramin iyo dhul aanu shaqo ku lahayn ciidamo isagu soo abaabulay geeyey xaaraan bay ku joogaan gardaray ku joogaan gardarru ku keenay carrada xire warsagela ciidanka uu keenay xaaraan bay ku joogaan waxaanu caalamka u sheegaynaa wixii ka dhaca inuu isagu mas'uul ka yahay heshiisyadii ahaa beelaha nabadgelyadooda soo dhaafay waa mid duulimaada oo xire warsageli lagu doonayo in lagu qabsado taa ma qaadanayno mana qaadan doono dadka beelaha dega gobolka sanaag badega waxaan leeyahay hal istifaaco difaac baa idin bannaan dad gobolkoodii degmadoodii ku nool baanu nahay jahaad baana lagu soo qaaday jeegaantu wixii aynu ku dijanayada ka jawaabaysaa waanu wiilaysannahay
waa dilannahay rasaas baa nala ku dhacay waa nala dhacay waxba waa naloo ku hagran sida xun baa naloola dagaalamay waxa jeegaanta noogula dagaalantana jawaabteeda la marinaya haddaannu degmada Damalle-Xagare nahay anigoo ku hadlaya maatada maxasta dumarka Damalle-Xagare waxa weeye annaga waxa weeye wixii ay noo geysteen muuse iyo jeegaantiisa waxa weeye wax aad iyo aad yani u dhib badan bay ahayd iminkana waxa weeye hadalka badin maayo annaga muuse iyo jeegaanta jabhadda inay dadka laayaan oo hubka u sita inay dadka xasuuqaan hubka u sita dad iyo dunyo midna aan eegayn waxa weeye annaga wax naga dhaxeeya ma jiro iyadoo halka ay ku xansuuqeen maatadii xoolihii dadkii biyihii midna aanay u dhaafin uu nagu soo duulay jeegaanta muuse uu noo adeegsaday hubka tiknikada ah kuwa ugu culus BM-ka tarantasaha suuga midna aanay noola hadhin jeegaanta muuse dagaal baa naga dhaxeeya isdhexmar malihin waxaa laynoo akhriyi doonaa qodobada wixii ka soo baxay shirkii ay beeshu lahayd waxay beeshu yeelatay shir socday dhowr maalmood dal iyo dibadba shirkaasna waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda waxay beeshu ugu baaqaysaa cid kasta oo beesha warsangeli ah una shaqaysa maamulka Muuse Biixi inay tashi kula soo noqdaan beeshooda iyo deegaankooda labo haddii aanu maamulka Muuse Biixi ilaalin nabadgelyada kuna ekaan ciddii ogol khasaaruhu isagu ku dambayn waxaannu u sheegaynaa beelaha deriska ah inaanay yeelin sida Muuse Biixi doonayo oo ah inay nabadgelyadu faraha ka baxdo bandowgiina kaga faa'iidaysto oo uu saaray gobolka Sanaag afar waxaannu kaloo halkan baaq uga diraynaa dawladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka sida jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ururka IGAD ururka jaamacadda carabta midowga Yurub dhammaan hay'adaha xuquuqul insaanka u dooda waxaannu ogeysiinaynaa in maamulkaas Hargeysa uu weerar qaawan ku soo qaaday dad shacab ah oo aan hubaysnayn oo ka mid ah beesha warsangeli waxaana weerarkaas iyo khasaarihii halkaa ka dhacay oo iskugu jira naf iyo maalba dusha u ridanaya maamulka uu hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi